safiirka iyo wafdiga ila socday madaxda jaaliyadda culumaaddinka dumarka ee dhalinyarada Soomaaliyeed oo halkan fadhida meel walba tagtidba dhalinyaro ugu badan kulligiinba waxaan marka hore cid walba joogta idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa waa mahadsantihiin soo dhaweynta diiran safiir adiga iyo jaaliyadaadaba marka labaad waxaan salaan idinka sidaa oo rabaa inaan deynta iska bixiyo madaxweynaheena madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo marka labaad anigoo magaciina iyo kan madaxweynaha ku hadlaayaba waxaan u mahad celinayaa madaxda dalka Qatar iyo shacabkaba runtii si diiran noo soo dhaweeyay laga bilaabo amiirka ama ra'iisul wasaaraha ama wasiirada oo runtii markaad halkan timaado aad dareemaysid inay tahay tusaale cusub oo ah dawladnimadeena inay soo noqonayso waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo waxaan aad ugu faraxsanahay markaad aragtid madaxda waddankan markay ka hadlaan Soomaalida waxay uga hadlaan si sharaf leh taas waxaa keentay isku duubnida iyo madaxda aad halkan haysataan oo aan ahayn safaarad ama dawlad Soomaaliyeed kaliya laakiin aan aaminsanahay inay tahay odayaashiina dhaqanka culumaaddinkiina dhalinyarada oo ka shaqeeyay in si midnimo ay ku dheehan tahay aad u ahaataan jaaliyad waxaad xambaarsantihiin sharafta ummadda Soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinaya Allah idin barakeeyo waxaan rabaa inaan idinkala hadlo xaguu marayaa dalkeeni fursad noocee ah ayuu dalku leeyahay maxaana uga aadan qof walba oo Soomaaliyeed inta aanan u gelintaa waxaad ogtihiin halkan markaan nimid maalin dhaweed aniga iyo wasiiradu inkastoo booqashadii aan ku nimid aanay weli dhammaan inaan kala saxiixanay heshiisyo waaweyn kan ugu horeeya wuxuu ahaa dhaqangelinta heshiisyadii aan hore ula galnay waxaana nala kugu bishaareeyay in jidadkii ay maalgashiga ku sameynaysay dawladda Qatar waan deyn nagu ahayn ay ka dhisi doonto xamar iyo jawhar iyo xamar iyo afgooye in la bilaabi doono bisanadkan inta aanu dhamaan la dhagax dhigi doono bilowguna sanadka soo socda bilowgiisa oo ahaan doono waa mashaariic jideedkii ugu weynaa oo ay dalkan dibadiisa ka fuliyaan waxaa kaloo ay nagu wargeliyeen sidoo kale in mashaariicdii dhismayaashii ama wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradda qorsheynta ama xarunta xisbiga iyaguna ay bixiyeen qandaraaskii iyaduna ay bilaabi doonaan qaarna ayba bilowdeen macnaheedu waxay tahay waa ay ka soo baxeen ballantii ay nagula ballameen waana ku mahadsan yihiin anigoo magaciina ku hadlaayana waxaan rabaa maxaddaas inaad nala qaadaan markaad aragtaan madaxda iyo shacabka qadariyiinta magaalada dalka joogta halkan waxaan kala saxiixanay markii heshiisyo cusub oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhaqaalaha sidii la isugu xiri lahaa bangiyada dhaqaalaha labada wadan sidii isu kaalmaysan lahaayeen ganacsatadu sidii isugu imaan lahayd maalgashi ay sameeyaan lagu sameeyo dalka Soomaaliya iskaashiga gaadiidka badda cirka dekadaha iyo iskaashiga amniga waa heshiisyo waaweyn kulligood oo wax ku ool ah oo lala galo kaliya dawlad la aaminsan yahay inay mustaqbalka faa'iido keeni karto
inaad dawlad la geshid heshiis caalami ah ee ku qotoma kobcinta dhaqaalaha isu socodka dadka iyo badeecada laba wadan gaadiidka badda cirka iyo dhulka iyo inaad kala heshiisid inaad ka wada shaqaysaan amni waara iyo sidii la isu kaashan lahay ma aha sanad iyo labo laakiin kontonka ama boqolka sano soo socota macnaheedu waxay tahay fahan cusub oo dalkani uu xambaarsan yahay oo ku aadan inay fahmeen inaanay Soomaaliya u arkin sida ay ahaan jirtay ama sida ay hadda tahay laakiin inay u fahmeen Soomaaliya sida ay noqon karto mustaqbalka waa sida ay ku salaysan tahay aragtida madaxweynaheena waa sida ay ku salaysan tahay aragtidayda iyo aragtida xukuumadda waa hadafka aan ka leenahay dawladnimada mustaqbalka kaasoo ah inaan fahamnay inaan leenahay badda ugu dheer Afrika teeda labaad inaan nahay dalka isku xira badda cas iyo Indian Ocean in biyaha baddeena hoostooda ku jira oo la cabo kaliya haddii la soo saaro ay ku filan yihiin in ka badan 1,000 sano Afrika oo dhan in khayraadka shidaale baddeena hoosteeda ku jira ay leeyihiin kuwa dalalka dunida maanta hogaamiya in dhulbeeraadka la tabcado oo tabcan karo oo dalkeena ku yaal uu quudin karo ugu yaraan qaaradda Afrika nuskeed in dahabka dhagxaanta dalkeena yaala ay yihiin kii dunidu u soo ordulayd in kaliya juqraafi ahaan dalkeenu meesha uu ku yaalo iyada lafteedu ay tahay dhaqaale socdo in baddeena kaliya 700 bilyan oo dollar jid ay marta ay tahay hawadeena nasaf loogu jiro waa nimco ummadda Soomaaliyeed ay ku fadhido aanay ku fadhi karin haddii aanay wax ka bedelin dhaqankii dawladnimadeeda ku salaysnaa ku dhawaad 30 sano la soo dhaafay haddii aad aragtid marka dawlad rabta inay Soomaaliya ula dhaqanto sidii hore si ka duwan la gashay heshiis ku salaysan 100 sano u aragta dadkeeda si ka duwan dunida inteeda kale waa dawlad annaga naga aragti dheer nooga aqoon badatay waxa annagu aan haysano sidaas daraaddeed ayaa waxaan rabaa inaan jaaliyadda reer Qatar u sheego oo ay muhiim tahay in shaqada waddankeenu aanay ku salaysnayn sanad iyo labo inaanay ku salaysnaan karin dan qabiil ama dan gaar ah inaanay ku salaysnaan karin gobol iyo aragti kooban laakiin inay ku salaysan tahay haddii aan isdaba qaban weyno haddii sida aan ku jirno si ka duwan aan u dhaqmi weyno waxaan niyadda ka jebinaynaa gabadhii halkan soo istaagtay ee waddankan ku dhalatay oo aabbaheed iyo hooyadeed ilaahay khayr ha siiye ay jacayl waddaniyad ku soo barbaariyeen iyadu weli ay taagan tahay mas'uuliyadda ay nagu leedahay ayaan ka gaabinaynaa niyaddana waxaan ka jebinaynaa sidaas daraaddeed waa inaan ballan ka qaadnaa kumanaanka iyadoo kale ah inaanay ku noolaan mustaqbal xumo dalkiinii xaguu maraya annagu dalka waxaan ugu nimid iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ay soo dadaaleen meelna ay soo gaarsiiyeen laakiin meesha la soo gaarsiiyey aanay ahayn meel uu dunida la jaan qaadi karo dhaqanka aan ugu nimid aanu ahayn dhaqan lagu aamini karo hiigsiga aan ugu nimid
aanu ahayn mid ilaalin kara khayraadkii hadda aan idiin sheegayo. sidaas daraaddeed madaxweynaha iyo anigu markii aad noo igmateen inaan u adeegno ummadda Soomaaliyeed oo aan aqbalnay inaan noqono shaqaalihiina idinka idiin shaqeeya oo aan aqbalnay mas'uuliyaddeena ugu horeysa inay tahay inaan xoolihiina dhaqaaleyno ama ilaalino ama anagu aanan qiyaamayn. waxaan sameynay wax la yiraahdo waa maxay waxa ugu horeeya oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ku waajiba. waxaan garanay inay tahay marka hore inta anagu aanan dalka wax u qaban inaan dalka dhibaatay. macnaheedu waxay tahay anigii madaxweynuhu inaan jeexano siyaasad ah inaan aniga isagu ka madax bannaanahay musuqmaasuqa, ka madax bannaanahay qabyaaladda iyo ninjeclaysiga, ka madax bannaanahay in shisheeyana iibsan karaan noona sheegi karaan go'aanka aan dalkeenna u gaareen, ka madax bannaanahay in milyan ama 2 ama 3 ama 100 milyan nala ku doorsiin karo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dhalinyarada soo koraysa. talabaad oo aan aniga madaxweynuhu ku ballanayna waxay ahayd sidee baa loo bedelaa fikirkii ahaa isma gasho in la wada shaqayn karo haddii madax Soomaaliyeed la yahay. waxay noo soo baxday qeexitaanka ah maadaama rabitaankeenna labadeennuba uu ku salaysnaa sidii ummadda Soomaaliyeed ay dhibka uga bixi lahayd inay noo sahlanaan doonto haddii Ilaahay uu na garab galo iyo ummadda Soomaaliyeed inaan wada shaqayno. waa taariikh cusub marka in weli qof Soomaaliyeed aanu ballan ka maqlin 21 bilood aan wada joognay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayra wada shaqayn waayo. intaasi waa inta ugu yar oo aad waajib noogu leedihiin. waxaan idin ballan qaadayaa inaan sii wadi doono haddii Ilaahay yiraahdo. danta dalka ayaa ka muhiimsan danta shakhsiga. waa maxay hadafyada aan ka leenahay marka dalka Soomaaliyeed inta aanan wiilashii iyo gabdhihii halkan soo istaagay kala hadlin iyagana waajibaad ka saaran. waxaan ka leenahay hadafyada soo socda. 1 waxa khayraada oo aan idiin sheegay dal kale haddana waxaan nahay dalka dunida ugu yar marka la fiiriyo miisaaniyaddeeda deena sanadlaha ah. dalkaas ku dhowaad 15 milyan oo qof ay joogto oo xeebtaas leh oo kalluunkaas leh oo dhulbeereedkaas leh oo ganacsigaas dunida ku faafay leh oo qaarada isku xira miisaaniyaddii sanadkani aan dhammaan waxay ahayd 274 milyan. kan ugu dheggan oo Kenya waa 30 bilyan oo dollar. kan dhinaca kale nooga dheggan oo Ethiopia ah waa 26 bilyan oo dollar. marka aragtideena siyaasadeed waxay ku salaysan tahay xaqiiq dhab ah oo ah sidee baan dunida ula tartami karnaa haddii dhaqaalaheenu sidaa yahay. maxaan yeelnaa marka? waxaan bilownay marka dhaqan ka duwankii hore. 1 in la shaqeeyo arrimaha dhaqaalaha. 2 in la isku xiro ganacsatada iyo dawladda. 3 inaan la aqbalin musuqmaasuq. inaan la aqbalin siyaasi inuu ku takrifaro xoolaha ummadda Soomaaliyeed. inaan sidii arday iskuul dhiganaysa uga shaqeyno inaan ka soo baxno shuruudaha ay dunidu nagu xirtay si deynta mustaqbalka nolol kaga cafiyo dhaqaalaha dunidu ay ku wada shaqeysatana aan leenahay. bangiyadeena ay bangiyada dunidu ugu xiran yihiin. in dib loo dhiso hay'adaha dhaqaalaha ama bangiga dhexe ama wasaaradda maaliyadda. in la kobciyo
هيئته وحصو صاركا إن شغل أبورو إن قفل بدولد وشقيس مشار لسيو سيس الحساب ثنكيس آمن كالكا سوق بالله كوي لباتن بلود كدب وحاندين شيغا يا بشن ديسمبر waxay tiri hay'adda dhaqlacagta adduunka waxay soo gaartay Soomaaliya inaan la saxiixano May 2019 heshiiska ugu dambeeyay oo deynta looga cafi lahaa waxaa daliilka ah inay dunida bilowday inay dawladda dhaqaale toos ah siiso waxaan rabaa in la iskula xisaabtamo maxaa la qabtay ma rabno dawladnimadu inay ahaato sidaan hore u sheegay kuraas bedelaysa ma rabno dawladnimadu inay ahaato dad Soomaaliyeed oo raadinaya kursi siday ugu munaafacaadaan dawladnimadu waa inay ahaato madax dareensan dareenkii gabadha halkan soo istaagtay ay qabto ogol in la isla xisaabtamo aan aqbalayn laaluush in la qaato aan aqbalayn in qof ajnabi uu ku yeeriyo danta Soomaaliyeed wixii aad ka dhihi lahayd markuu isagu ku sheego madaxnimadu waa qof madaxa oo aaminsan fursadda aad kula kulantay qofka ajnabiga oo dal kale madax ka ah waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed ku igmadeen inay aad la kulantay macnaheedu waxay tahay kaliya waxaad gudbi kartaa fariinta ugu wanaagsan ay ummadda Soomaaliyeed ku soo dhiibteen madaxnimadu waxay tahay inaad aqbashay inaadan milkiile ahayn oo mas'uuliyad ay ku saaran tahay inay tahay inaad dad u adeegto oo markii aad aqbashay inaad madax noqotid waxaad aqbashay inaad adeega noqotid mashruucan loo maleeyo marka qofku inuu madax noqdo inuu shacabka iska weynaysiiyo waa in loo gartaa dadka halkan fadhiya waa khasab inaan u soo dhawaano oo dhageysano kan naxna dareenkooda haddii aanan ka naxayna annaga keenna wax ka qaldan yahay waa inaan gees uga baxno sidee marka mashaariicda waaweyn aan rabnaan u filina mid waa arrimihii dhaqaalaha si dhaqaalaha loo kobciyo marka waxaad u baahan tahay dunidu inay ku timaado si dunidu kuugu timaado marka waa inaad leedahay nidaam siyaasadeed oo lagu soo ordi karo tubta labaad ee tan dhaqaalaha soo xigto aan ka shaqeyno waa tub la yiraahdo tubta siyaasadda loo dhan yahay taas marka waa aragti ka turjumaysa boqolka sano soo socota haddii Ilaahay yiraahdo macnaheedu waxay tahay shaqo walba oo hore u dhib badnaatay in la dhammaystiro aasaaskeeda in la jeexo waa maxay macnaheedu waxay tahay waa in la helaa wixii ummadda Soomaaliyeed isku hayn lahaa nidaamkii isku hayn lahaa nidaamkaasi waa maxay dastuur dhammaystiran oo dadku wada ogol yihiin siyaasad dhammaystiran oo ka turjumaysa gabadhaas halkan timid markay rabto inay mustaqbalka madax noqoto xisbiga siyaasadeed ay geli lahayd ama furan lahayd sharci doorashooyin oo ay u imaan lahayd ay qayb ka noqon lahayd nidaam doorasho oo ku salaysan in dadka Soomaaliyeed ay cidda ay dooranayaan ku doortaan aqoontooda dawlad laguma dhisi karo qabiilkeeta marka rabto inaad dunida la tartantid duniduna ay bilowday inay aqoon isu dhoofiso aqoonna kala iibsato annaguna aan taaganahay qarniga 21aad laakiin wali aan u dhaqmayno sida qarniga 19aad waxay tahay marka inaan sameeyno shuruuc dhammaystiran ama ahaado dastuur ama ahaado doorasho ama ahaado asxaab ama ahaado sharci cadaalad dalkoo dhan ku soo dabaala waxaan idin sheegayaa ugu yaraan 60% ama 70 shaqadaas oo dhan waa soo dhammaystiran waxay u baahan tahay kaliya inaan Soomaali soo hordhigno ay ka heshiiso dastuurka
shantiisi cutuba ugu horeysay waa la dhameeyey afartii ku xigtana waxay maraysaa meel fiican shanta ugu dambeysana waxa u dhiman kaliya inay Soomaalidu ka heshiiyaan macnaheedu waxay tahay waa inaanan ka baqin su'aalaha waaweyn oo dadka dhalinyarada u dhameystiraya mustaqbalka inay dareemaan fursad dawladnimo arrinka saddexaad oo aan ka shaqeyno waxa la yiraahdaa adeegyada bulshada dawladdu waxay sideedaba dawlad ku tahay inay shacabka adeeg siiso inay iskuulo leedahay inay isbitaallo leedahay inay jidad dhisto inay buundooyin dhisto inay shaqo abuurto inay dadkeeda u gurma karto inay waxbarasho siin karto inay dunida albaabaheeda u furi karto dawlad marka hal iskuul aan lahayn ama hal isbitaal oo iyadu ay jeebkeeda ka bixisa aanay lahayn sida kaliya oo ku fahmi karta inay dhibaato qabto waxay tahay marka shacabka Soomaaliyeed mana aaminayaan mustaqbalka fog haddaanay ka helin dawladda adeegga ay ku leeyihiin dawladdiina waxay bilowday in iskuulada la wareegto isbitaalada la wareegto jidadka inay dhisto dawladdiina waxay bilowday mashruuc la yiraahdo isxilqaan oo daafuray madaxweynaheena oo lagu bilaabay in madxafkii maktabadii tiyaatarkii qaranka taalooyinkii ama xawataako ama dhagaxtuur ama sayid maxamed kulligood lagu bilaabay hadda ama la bilaabi doono in sanadkay barka aan 2 sano soo socoto hadii ilaa yiraahdo lagu dhameystiro xoog iyo xoolo Soomaaliyeed shaqaalaha wasaaradaha maalin walba iyo usbuuc walba wasaaradaha jadwal ay leeyihiin mid kamid ah ayaa u shaqo tagta si ay isxilqaan ugu soo dhisaan sanadka soo socda bilowgiisa waxaad u imaan doontaan haddii Ilaahay yiraahdo dhismayaal bil dhamaaday oo tiyaatarku ugu horeeyo oo maktabadu ay ku xigto oo madxafka qaranku ku xigo macnaheedu waxay tahay dawladdu waa inay adeeg bixisaa adeeg si ay u bixiso waa inay dhaqaale haysaa dhaqaale si ay u hesho waa inaan soo marnaa shuruudihii adkaan idin sheegay inta shuruudahaas aan soo dhameystirayno oo dawladdu ay ka yeelanayso miisaaniyad dhab ah waa inaan isxilqaan ku sii shaqeynaa waayo meel ma fadhin karno arrinka afraad waa arrinka la yiraahdo wax ka qabashada amniga dalka si amniga dalka looga qabto marka wax wuxuu u baahan yahay in la fahmo waxaanu nimid annaga waxaanu nimid ciidan aan la ogeyn tiradiisu intay tahay oo taliyuhu ka markhaati yahay aan la ogeyn meesha ay kala joogaan aan mushaar badankood qaadan waxaan bilownay inaan tirino tayeyno mushaar siino halkan heshiisyada aan galnay waxaa ka mid ah sida aan xerooyin ugu dhisi lahayn u qalabayn lahayn si dawladda Soomaaliyeed sanadaha soo socda ay u leedahay ciidan tirsan tayeysan tilmaaman oo toosan oo taliyahooda ka amar qaata sababtoo ah dawladda Soomaaliyeed ayaa siin doonta mushaarkooda haddii Ilaahay yiraahdo intaas waxaa noo dheer wax la yiraahdo siyaasad arrimo dibadeed oo qoto dheer waxyaabaha ugu badan oo aan la kulannay waxay tahay ma aha sida aan u naalno iyo sida dalkeena aan u duminay laakiin waxa ugu badan oo aan la kulannay oo aan weli ku dagaalamayno in la bedelo waxa ay tahay sidaan u bedeli lahayn waxa nala ka aaminsan yahay waxa kala laba ah waxa dadka Soomaaliyeed iska aaminsan yihiin ee waxa ay dunidu naga aaminsan tahay maadaama uu nagu dhacay qaran jab waxa ay keentay qalbi jab
qalbi jabkaasina waxa uu keenay qaawanaan qarannimo qaawanaantaasi waxay banaanka soo dhigtay ceebaheen sababtaadu maqlayso waxa isdagaalsan aan heshiisayn culimada ama dhalinyarada ama ganacsatada ama haweenka Soomaaliyeed oo laf dhabarka ummadda Soomaaliyeed ah sababtu waxa ay tahay intaas oo dhan oo la isgeeyay ceebteeda waxa asturta hal wax kaliya inay jirto dawlad xoog leh quwad leh laakiin aan qabyaalad ku salaysnayn iyo qof raadinaya inuu isagu qowlaysto laakiin dawlad qarannimo xambaarsan oo ilaalinaysa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed heshiiska Soomaaliyeed meesha laga raadinayo marka ugu horeysa marka waxay tahay soo celinta sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dariiqa ugu sahlan ee lagu soo celin karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxay tahay in la helo dawlad u adeegta iyaga ama jidadka la dhisaayo ama isbitaalada la wareegayo ama iskuulada la wareegayo ama maxaabiista meel walba laga soo deynayo waxaan idin ballan qaadayaa qabiil soo deyn kara inaanu jirin waxaan idin sheegayaa halkan inaadan sharaf ku yeelanaynina haddaanay jirin dawlad sharaf leh oo dalkiina joogta hadafka dawladnimo iyo doodayda marar badan Soomaali waan u soo bandhigay inta aan idin sheegay ma ahan inaan anigu idin sheegay kaliya wasaarado walba iyo hay'ad walba oo xukuumadda ka tirsan usbuuc walba shir bay leedahay ka horeeya golaha wasiirada mid walba hadaf bay leedahay ku salaysan wixii aan idin sheegay shir walbana aniga fadhiya afartaas heykalo waaweyn wasiirada iyo wasaaradaha iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa xafiiska madaxweynaha hay'adaha kale oo madaxa bannaan kulligood waa fadhiyaan isbuuc walba macnaheedu waxay tahay wasaarad walba waxa la garanayaa waxa lagu la xisaabtamayo hadda iyo inta laga gaarayo waqtiga 2020 oo ah meesha ay ahayd 4 sano madaxweyne Farmaajo loo igmaday waxa intaas dheer marka shaqadaasi waxay leedahay qaab loo daba galo oo xafiiska ra'iisul wasaaraha yaala oo madaxweynuhuna uu og yahay waan ognahay wasaarad waliba meesha ay joogto waxaan rabaa inaan idin sheego waan rabaa hortiina inaan ka caddeeyo xoog baa la geliyay waqtigaas isaga aan dalka joognay inaan soo gaarno inaan leenahay hadaf qoto dheer ku salaysan oo dunidu ay aqbasho inay hal albaab ka soo gasho hadafkaasi wuxuu u baahan yahay in laga dhabeeyo si looga dhabeeyo marka waxaan rabaa inaan qeexno waa maxay dawladdu dawladdu waa idinka dawladdu waa shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa marka dhaqankii aan ku soo daalnay oo ahaa in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed dhexdhexaad laga noqdo in dariiqa khaladka iyadoo lagu socdo wali la aamuso dhexdhexaad lagama ahaan karo masiirka ummadda Soomaaliyeed wiilashii gabdhaha soo koray iyo kuwa naga dambeeya dunidu waxa ay maraysaa in caruurtooda dhalan doonta 100 sano soo socota ay dhaqaale meel u sii dhigaan annaguna waxaan wax barasho siin la'nahay iyo caafimaad kuwa hadda noo jooga sababtu waxay tahay waxaa la aaminsan yahay in madaxweyne haddii la doorto ra'iisul wasaare uu magacaabo xukuumad uu sameeyo in dalku barwaaqo galayo dawladdu waa annagoo iskaashanay waa gabar Soomaaliyeed oo lagu soo koriyay
wadaninimo ku barbaartay wax ku soo baratay iyadoon dalkeeda tegin u taagan inay dhakhtar noqoto dalka ku noqoto isbitaal dhista waa sheekh Soomaaliyeed oo yiraahda aniga og dalku inuu barwaaqo gelaya ummadana ku baraarujiye waa oday Soomaaliyeed oo dhalinyarada yiraahda iska daaya qabyaaladda iyo laaluushka waa hooyo Soomaaliyeed oo tiraahda annaga soo aragnay dariiqa xumaa ma yeelayno qablayaal iyo calooshoodu shaqaystayaal dawladnimadu waa Soomaali tiraahda Soomaalinimadan rabnaa dawladnimadu waa Soomaali tiraahdo waa ku daalnay sida hore waxaan rabnaa sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed aan soo celino anigoo aad u qadarinaya inaad tihiin jaaliyadihii aan dibadda ku arkay tan isugu duuban haddana waxaan rabaa inaad xisaab gelisaan dalkiina maxaa gacan ka geysataan si dib loogu dhiso inta anagu aan joogno xukunka waxaan idin ballan qaadayaa inaan aqbali doonin in la cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda ah nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yiraahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridayna inta aan anagu madaxda nahay anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan idin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantihiin